السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومحمد ربيع توكس هاد مقالة لندن. أنت ومالنتي لوي تونات أبريل لو كن يقول حلواتنك waxay soo gashay in wareys gaar aan la yeeshto sarkaal hore ciidamada xoogga dalka ka tirsanaa engineer Faatax soo dhow wadhow hay-adii asxaabta iyo khiyaarta maarta kugu xiran waxa weeye waa maalin mudan in hambalyeyn maarta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ah astaan qaran oo iyo tiirarka ugu waaweyn ee wadan leeyahay loo baahan yahay maartay in mar walba la ogaado 12 Abriil oo bixin sano marin hadii ka soo wareegtay ciidanku waxa waaye ودو دحاتك ومدة الصومالية مركا سراكيش سراكيل حجينتا مدحضة إيو دبلي دابا وحان كسلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان وهم بلياني هوش علوس أو حيان إلى لنت الدفاع قرنك يدنتو ذا دناها أمد أن مارت الدفاع حيث أمد معها مركا taas waxayna kamid tahay maartay waraysigaani idareynaysa maartay xilligeygii aan ardayga ama kaadidka ka ahaa akademiyada oo aan ciid ahaan ugu joogay especially waxaan aad u salaamayaa ciidanka cirka iyo asxaabta saaxiibada oo ayaga laftigooda banaanka wali jooga iyo kuwa gudaha ku jira utaagan mar walba dhaartay ku dhaarteen inay ilaaliyaan difaaca dalka iyo qarannimada Soomaaliya wadan walba lafkiisu waa ciidankiisa waxaan lagu haybada iyo awoodda lagu qiimeeyo wadankaasna waa inta ay la egtahay awoodda ciidankiisa inta awoodda ciidankiisu la egyahay ayaa lagu qiimeeyaa waxayna ku xiran tahay mar walba wadanka dhaqaalaha iyo inta sida maartay loogu hagarbaxo ciidankuna waxa waaye waa inay ilaaliyaan kalsoonida shacabkooda ay ku qabaan macnaha ciidanka waa inaysan ku milmin normal dabacad ahaan ciidanku waa inaysan ku milmin siyaasooyinka kala duwan siyaasiyiintu ay wataan aysa ilaaliyaan wax qaran oo guud oo ah ilaalinta hantida quruxda iyo deganaanshaha ummadda macnaha taas baa loo ayagu kala duwanaadeen ahaadeen kuwa gudaha ah sida booliiska kuwa maartay maxaabiista ilaaliya ciidamada asluubta iyo nabad sugidda iyo kuwa difaaca direct ugu jira oo banaanka ka jooga sida ciidanka infantryga ama loo yaqaan ciidanka lugta iyo ciidanka cirka oo caalamka hadda aasaasna oo ah ciidanka haday waxa way su'aalahaaga waxaan xusuustaa inay kamid ahaayeen adiga akademi asluubta iyo ciidanka uu leeyahay maxay tahay looga baahan yahay ciidanka wuxuu leeyahay etika iyo asluub iyo jadwal uu ku shaqeeyo iyo qaab uu shaqeeyo waxaana ka soo qaataa xarumo tababarka la siinayo laba waay mid waxa way qofkaas specialistiga macnaha nooca habka gaarka ah oo u shaqeynayo haduu kaara ku shaqeynayo kaaraha soo shaqeynayo in la baro haduu madfac ku shaqeynayo madfac waa in la baro haduu ka isticmaalayo ka waa in la baro waa waxa uu ku shaqeynayo ciidankuna sida dadka ay u maleynayaan maaha waa wuxuu leeyahay laan kasta oo kala duwan caafimaadkii buu leeyahay oo nursingkii buu leeyahay oo wuxuu leeyahay engineeringkii buu leeyahay kala duwan oo akii wadooyinku leeyahay kii cirku leeyahay kii badu leeyahay wuxuu leeyahay siyaab mid walba specialist u qaadanayo haddana wax guud ka dhaxeeyo oo discipline oo ah civilka ay kaga duwan yihiin civilku courtesy discipline baa ka dhaxeeyo oo labada qof oo wada shaqeynaysa oo waxa qaba iyo waxa qaba ka dhaxeeyo laakiin ciidanku wuxuu leeyahay kala awood badnaansho ama awaamiir kor ka timaada oo midaba mid u soo daadagto oo ah inuu qofku uusan diidi karin ee uu aqbalo amar kasta oo kor kaga yimaadana uu waajib yahay haduusan ahayn mid constitutionka khasab ku khaldan laakiin wixii constitutionka iyo diin iyo dadnimo khalad ku ah
ma ka qaadanayo oo qofku waxa waaye wuxuu fiirinayaa waxaani ma wax khalaadaha xulashada ciidanka maxaa lagu xutaa diniyo waxay ku xiran tahay wadan walba dadkiisa sida ay yihiin buu ku xiranaya ciidanka waxa la rabaa inuu caafimaadkiisa horta uu fid yahay aqalkiisa fid yahay daadiisu ay inuu dhaxayso dhererkiisa uu inuu dhaxeeyo wax walba waa in limitation u jira lagu ilaaliyo marka uu soo galana fit inuu ku noqon karo waa inuu yahay waxa marayaa intuusan tababar specialista gaarin ka hor wuxuu marayaa the fit inuu ciidan ku fidiyaa ka soo qaad orodkii baa la sameynaya boodadii buu sameynaya wadnihiisa la baaraya madaxiisa la fiirinaya marka ka bacdi ayaa waxa la ogaanayaa inuu qofkaasi uu shaqo bulshada uu qaban karo oo fit ku yahay ka bacdi waxa la fiirinaya discipline-kiisa in maartay inta uu ku jiro tababarka ayaa waxaa la marsiinayaa waxyaalo badan oo adag oo awaamiir kala duwan oo dad kala duwan ay marinayaan dadkaas hadduu awaamirtaas uu siday u tahay u qaato waxa waaye wuxuu noqon karaa qof dee long run ku soconaya discipline-kiisa siduu u yahay shaqadiisa markaas u gaarka u ah oo ama management ha ahaato ama madaafiic u ridaya ha ahaato ama diyaarado u kicinaya ha ahaato ama diyaarado u repair garinaya wuxuu raba ha ahaato kabacdi taas uu qabanayo shaqadaas shaqo wanaagiisa iyo wuxuu ku kici karaa edabtiisa iyo akhlaaqdiisa iyo xataa waxa waaye istructuradiisa qaabka uu dharka u libisay qaarka nadaafadiisa uu ilaaliyo qaabka uu dadka u dheeho oo dad la dhaqanka uu leeyahay waxaan arkaa mugtahay ciidanka waa in asaguna waajibaadkiisa u guta asagana xuquuqaadkiisa u hela marka in badan maadaama aysan xuquuqdiisa uusan helayn baad waxaad arkaysaa waajibaadkiina inuu la dhumayo waxaa la rabaa qofka ciidanka ahi 24 saac in la og yahay meesha uu ku nool yahay meesha uu ku maqan yahay uusan ka baxsan uu noqon qof fasaxan uusan ahayn waa qof xiran waqtigiisana la buuxinayo waqtigiisu waa inuusan iska faaruq iska noqon marka xeryaha la joogo marka activitooyin kala duwan ama sport ha ahaato ama caafimaad ha ahaato ama shaqo ha ahaato ama masraxiyad ha ahaato shaqo waa inuu ku mashquulsan yahay marka uu dagaalku combat because training uu ku jira marka uu dagaalku yinaahdan de combatment ku jira arintii uu actual garay dhab ahaan u sameynaya laakiin wuxuu ilaalinayaa waxyaalaha maartay azmooyinka guud oo dhacana wuu ilaalinayaa marka ciidanku waa badanaaba waxa waaye wadamada qaarkood ayagaa biriishada wadooyinka dhisa guryaha ayagaa dhisa ayagaa tartan la gala shirkadaha banaanka marka waxaa la baraa sida loo dhiso guryaha waxaa la baraa sida loo dhiso biriishada waxaa la baraa sida loo beera kasoo qaad asluubta iyo maxaabiista iyo raashinka ugu badan wadamada ayagaa sameeya oo looga faa'iidaysta sariiraha maxaa warshado yaryar baa loo dhiiba immobiliyaaraha warshado ay sameynayaan sariirihii iyo maxaa la yiraahdaa komadiinkii dharkii wixii alaabtii loo baahnaa harqaankii waa loo geenaya dharkii way sameynayaan caafimaadkii bay baranayaan oo isbitaalay leeyihiin oo dadkuna ay ka faa'iidaysanayaan ayaguna looga faa'iideynaya marka bulshadaas ay la nool yihiin waxa waaye oo shacabka ahayna way ka faa'iidaysanayaan isbitaalka waxaa jira isbitaalka xooga waa ogay saas ah wadan kasta u leeyahay oo ay ugu dhex jiraan marka sector kasta waxaa la rabaa in loo diyaariyo managementiga ayagu waxay leeyihiin xisaabaad bay u baahan yihiin xisaabiye u baahan yihiin wixii kala duwan bay leeyihiin waxaasoo idil waxaa laakiin xoog jooga oo maskax leh oo tiro leh oo tayo leh haddii ay tahay shaqooyin hadda waxa waaye gaabisa bay baadon baa laga yaabaa inay ku yihiin kharashka ugu badan inay ku baxaan laga yaabaa retain wadanka ay ku soo celiyaan ay yar tahay oo inay xabad ridaan oo qofka dilaan maaha aysan wax kala sameyn laakiin inta badan waxay ahayd in looga faa'iideysto xooggaas ma ay wada joogaan wax badan guryo dhiska looga faa'iideysan karaa abaaraha in maaragtay beeraha loogu sameeyo looga faa'iideysan karaa waxaa looga bacad celinta looga faa'iideysan karaa warshado gaar oo ay leeyihiin oo inta beeraha soo saaraan oo loo iibiyaa laga faa'iideysan karaa iyaguna waxa waaye retain bay usoo samayn lahayn xagga kalena diyaar waxay u ahaan lahaayeen dad waqtigoodii laga faa'iideystay xilliga dagaalkoodii bay ku jiraan xilliga deganaanshaday ku jiraan kii caafimaadka u soo bartay oo free ugu soo bartay oo la soo baray wuxuu noqonayaa nin caafimaadka bulshada ku soo celiya kii injineernimo la soo baray wuxuu noqonayaa nin injineernimo bulshada ku soo celiya oo tenderkay qaadanayaan uu ka raqiisay dawladdu markay dhisayso guryo public ah waxa ku dhisaysaa ciidankay ku dhisan kartaa qalabkii ay soo gadanaysaa dadkii ay wax baratayna way haystaa marka tenderkii bay qaadanayaan ama incentive yar baa la siinaya oo ka duwan ka private-ka
marka ciidanka siyaabo badan oo laga faa'iideysan karo way jirtaa waa la gaari doonaa in laga faa'iideysto haddana waxaan arkaa in maaragtay quality-goodii iyo tiradoodii iyo tayadoodii ay ka soo baxayso laakiin waxa waaye akademiyooyinka la sameynayo iyo discipline-kooda iyo qaabka loola dhaqmo in la hagaajiyo baan rajaynayaa xuquuqaha caruurtooda anna waxaan fiil askarina waa dhalay oo xuquuqda askarinimo uu heli jiray waa garanaya waliba wuxuu ku jiray rankiga hoose dableyda iyo gaariyoodi iyo waxaas dadkaas marka xuquuqdooda in helaan oo ciyaalkii ay dhaleen ay waxbarasho u awoodi karaan inay helaan iskuulada free looga dhigo laga caawiyo incentive noocaas ay helaan xagga kalena waa in ayaga tababarkooda iyo trainingkooda la siiyo si ay dad facaal u noqdaan waxyaalaha waddanka dhibaato ku ah waxaa ah oo nagu soo siyaaday waxyaalaha superficialta la yiraahdo khamriga iyo khamaarka iyo qashinka iyo jaadka iyo kuwa in laga ilaaliyo marka hore doorashada la dooranayo in lagu ilaaliyo ka bacdina ay culimadu caalamku idil waxaa ku jira sector culimada oo waaniya oo masaajidada wacdiga siinayo akhlaaqdooda ilaalinayo haybadooda ilaalinayo oo ciidan ah waa inay ku jiraan ciidanka dhexbartankiisa oo ay ku jiraan baarti ka yihiin si akhlaaqda dadka loo ilaaliyo qofka aan wax loo sheegin wax lama weydiin karo marka khamrigaas si loo yareeyo waa in ciidanka dadkiisa la qorayo culimo lagu daraa oo culimo ay ku jirtaa akhlaaqdooda hagaajinaysa anagu dhaqankeena iyo diinteena iyo dadnimadeena taasay ku jirtaa oo in maaragtay lagu daro marka aan xilliga anigu talyaaniga akademiyada kaga jiray haddana xilliga salaadaha aan leenahay masaajidkeena iyo dadkeena waa ixtiraamkeena aan haysan ayagana xilligood fiidka ay tahay kiniisadooda aadayay marka qofka askariga ah oo tababarka ku jiraayo ma aha qof firaaq iska faaruqa waa inuu qof noqdaa disciplineka iyo dhaqankii iyo diintii iyo isku wada taasna waxa looga baahan yahay dadka hogaaminaya ama akademiyooyinka jooga in aysan u arag wax structure ah oo qofkii qori kaliya in la bare oo jaad iyo khamri oo hadhowta bulshada isagoo khamri cabayo qorigii qaadanayo dadka iskala dhacaya qof qaad cunay ama khamri cabayo maskaxdiisu ma joogto marka labadaasna in laga yareeyo haddana maadaama shaqadu ay yar tahay loo badiyo dadka wax bartay oo ka soo qaad dadka dhakhaatiirta bartay askarta la qoro mushaarkooda la siiyo ay ka mid noqdaan oo saraakiishii ay noqdaan dadka managementiga bartay ay maamulkii qabtaan inta laga helayo mid ku soo bilaabo akadeed ah loo qaatay laakiin dad wax yaqaano oo aan jaad cunayn oo bulshadana dhaqactay qaateen guryo iyo family ku biilaya la siiyo ee aan nafsadoodana ku dileen bulshadana ku dileen qorigana responsibility midda kale to waxa waaye qoriga iyo rasaasto inay kala madax banaanaato sida hadda wadanku uu yaalo maadaama amnigu sii hagaagayo waa inay jirtaa waxa waa stoorkii hubka lagu ilaalinayo oo qoriga iyo khasnada iyo rasaastu inay isku meel taalaba ma aha inay kala madax banaan marka la isku keeno waa in mar operation la qaadayo laakiin mar walba waxaan aragnaa rasaasti qofku inuu qoriga leeyahay rasaasti isagu leeyahay waxaasna waxa waaye horumarka kuma jiro hubabka waaweyn sidoo kale macnaha wuxuu in kala madax banaan yahay amniga ku jira tirakoobka ku jira ilaalinta maaragtay hubka ku jirta aaminaada iyo in aan yeelan karno hub oo nala ogolaado waxa kamid ah in storage-daas leenahay haddii aan hubkaagu aadan ilaalin karin qof ilaalin kara aadan ahayn ma helaysid marka insha Allah waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad waxa weeye maalinta 12 Abriil waxaan hambalyo u dirayaa saraakiisha saraakiil xigeenta dableyda iyo dhammaan ciidanka gaar ahaan ciidanka cirka oo aan bahdooda kamid ahay waxaan leeyahay maalin wanaagsan hambalyo wanaagsan sanadkan sanadkiisa kaleeto guul iyo gobonimo leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wareysiin la yeeshay injineer Faatax oo ahaa sarkaal sare ee dowladda federaalka Soomaaliya oo wax ku soo bartay dalka Talyaaniga جيري مانتو لوي توانكي أبريل وسنة جورودي حقوق الصومالي آد أدب مسنتاي سودو